والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحوينها جمهورية سوماليلاند يوفتقو هogaaminayo anigoo ku hadlaya magaca gobolka saaxil guud ahaan halo bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baan uga xumahay inuu inaga yargo mikrofoonku anigoo ku hadlaya guud ahaan gobolka saaxil iyo gaar ahaan degmada Berbera waxaanu madaxweyne halkan kugu soo dhaweynaynaa si kaliya laaba waxaan jecelahay inaan marka koobaad u mahad celino Ilaahay marka labaadna inaan u mahad celino madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland marka saddexaadna waxaan jecelahay inaan halkan hambalyo iyo bogaadin aan u soo mariyo taageerayaasha xisbiga kulmiye ee guud ahaan gobolka saaxil iyo gaar ahaan degmada Berbera madaxweyne waxaan jecelahay halkan inaan ka qiro xisbiga kulmiye inuu noqon doono insha Allah bismillaahi kariin gobolkani gobolada ugu xoog badan yahay sidaad ka war haysaan reer Berbera iga marag furayaan 2017kii waxay reer Berbera madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland siiyeen boqolkiiba 74 codkii guud ee gobolka laga bixiyay waxaan jecelahay inaan halkan uga mahad celiyo taageerayaashii oo maantana madaxweyneyna hor taagan waxaan leeyahay aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waxaan jecelahay inaynu guusha halkaa ka sii wadno oo aynu fulino abaalka uu gobolkan ku leeyahay xisbiga kulmiye sababtoo ah madaxweyne gobolkani markii la qiimeeyay 81 degmo ee ay Soomaaliland ka koobnayd 2010kii gobolkan wuxuu ahaa gobolka ugu horumarka liita 11 sanadood ay xukuumadda kulmiye qacanta ku haysay gobolkan wuxuu noqday gobolka ugu horumarka badan uguna horeeya guud ahaan Soomaaliland sidaa darteed dadka reer Berbera amba guud ahaan gobolka saaxil oo leh xadaarad iyo ilbaxnimo fac weyn waxa ay garteen inay ugu hiliyaan xisbigan kulmiye codkiisa boqolkiiba 74 markaa waxaan rajaynayaa inaynu mar labaad ku guulaysan doono boqolkiiba 74 iyo in ka badan soo sidaa ma aha insha Allah waxaan rajaynaynaa 31 May oo maalin taariikhi ah inaynu ku guulaysan doono madaxweyne waxaan kaloo halkan jecelahay inaan ka xuso xulashada gobolka saaxil la xushay xildhibaanadu waxaan isleeyahay waa gobolka ugu xulashada fiican leh waxaa halkaa ka muuqda Sheekh Maxamed Xaaji Maxamed oo ah sheekhul beledkii gobolka iyo degmada Berbera taasi waxay muujinaysaa inaan laga tagin sheekh iyo shariif midnaba hablona waxaan madaxweynaha jecelahay inaan ku faano gobolkan waa gobolka kaliya ee laba hablood ay ka sharaxan yihiin baarlamaanka taasina waxay noo muujinaysaa xadaaradda ilbaxa iyo aragti dheeraanta gobolka saaxil madaxweyne halkan waxa ka sharaxan gobolka saaxil Samson Maxamed Cige iyo Amran baa ka sharaxan oo aan ka sharaxnayn gobolada kale waa xisbi waxa weeye waa gobolka kaliya ee siiyay laba xubnood oo golaha baarlamaanka markaa waxaan jecelahay inaan aad iyo aad u bogaadiyo doorashadaasi ma aha aynu dooranay hablahaasi mid ku timid doorasho mas'uuliyiinta laakiin waxay ka soo baxeen xisbiga waxay ku soo baxeen tartan adag ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inay ku guulaysan doonaan oo ay gobolkan oo boqolkiiba la yiraahdo 55 waa dumar inay heli doonaan matalaad rasmiya bismillaahi kariin waxaan jecelahay inaan si gaar ah ula hadlo dumarka
codka ugu badan ee la bixiyo codka ugu badan ee la bixiyo waxa bixiya dumar baa bixiya waxaan rajaynayaa inaad hablaha aad u hilin doontaan insha allahu mustaqbalka dhow oo aynu u dabaaldegi doonno guushooda insha allah waxaan ugu dheeraaday oo aan ugu dheeraanayaa xagga dumarka waxaad og tihiin inta badan in dumarka iyo dadka aynu ognahay inta badan inaan cod la siinin dadka ugu badan codka bixiyaana waa dumar iyo dhalinyaro sidaa darteed waxaan idinku boorinayaa in la doorto soo sidaa maaha inaan hablaha dooranno soo inaynu hablaha dooranno sax ma aha soo ma gayaan in la doorto bismillaahi kariim waxaan rajaynaynaa inaynu ku guulaysano madaxweyne iyo reer berbera guud ahaan waxaan ku celinayaa 2005tii doorashadii baarlamaanka xisbiga kulmiye halkan wuxuu ka helay 2 xubnood laakiin maanta waxaan rajaynaynaa inaynu heli doono 7 xubnood bismillaahi kariim 70% markaynu ku dhufanno baarlamaanka hadduu allah wadal ogolaado waxaan jecelahay maalinta doorashada malay maqlayaa maalinta doorashada saad u soo baxdeen inaad u soo baxdaan waxaan ku soo gabagabaynayaa kulmiye guul idinkuna guulaysta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu